gabadhan ay mar walba xadhibaateenay saaxiibkeeda magacaliyaheeda markaas uu soo wada maqaaxadaan kadib meesha ay xuksameynaysaa helb yani caawi iyadoo ka sameynaysa jibsiga saxanka ku jira ee loo keenay balse haweenidii waiterka ta saxanka markii badafaysa iyadoo aan fiirin wax meesha ku qoran markaas ay gabadhi waxa ku dheesay oo kaadi iskan gacanta ku qoran wuxuu ku dhahay maxaa ku dhahay waxaad u baahan tahay markaas kalweerigan waxay dheesay wax kale u baahan tahay inaan ku dalbo isagana wuxuu ku dhahay way dherginta beenteeda idan wuxuu ku dheesay wax kale u baahan inaan ii dalbo markaas ay kalweerigan wuxuu ku dheesay okay diyaar aan ku dalbay maxaad baahan tahay soo sheeg markaas ay gabadha dalabkeeda ugu horeeyay wuxuu noqonayaa spaghetti sidoo kale waxay dalbanaysaa omelet iyo sorbet iyadoo ku dheesay si degdeg ah ay ugu keen isagana wax naaqo gabadh aad u fiirinaya markaas ay gabadh waiterkeed waxay ku dheesay sorbet waxa umleeyahay inuusan inoo yaalin wax kala dalbo isla markaasina waiterkii waxay fahmaysaa gabadhan inay u baahan tahay caawinaad waxayna bilaabaysaa gabadhan inay si fiican u fiiriso sidoo kale si fiican u fiirsaninka markaas waxay ku dheesay diyaar waxa u baahan tahay lagu keenay oo dalabkaas degdeg aan kugu keenayna markaas ayuu isagana si xanaaq badan wuxuu ku dhahay dhegeyso anaga uma baahan waxaan cunnay kaliya waxa u baahan halkaan iskaga tagno laakiin gabadhii maskiinta waxay dheesay laakiin anigu wiil waan gaajeysnay isagana wuxuu ku dhahay waxba iga meeysan gelin taas markaas haweeneyda waxay ku dheesay okay diyaar waxa kadib baadin soo laabanay ay kaadiya dib ay alaabtay glaaskan soo qaadaysa waliba iyadoo biyaha ku shubaysa isaga markaas ayadan waxay ku dheesay iga raal noqon gabadha iga raal noqon aan ku jeedin isla markaas ninku is xanaajinaya waliba gabadha soo fiirina waliba isagoo ku dhahay waxaan ku sheegi lahaa halkan inaadan ka dhaqaaqin xitaa isagoo u siiraan hadii halkan ka dhaqaaqdo aan ku dili doono ayuu ku dhahay gabadhan way maqlaysaa iyada aan ku soo laabanay ku dhahay kadibna uu soo tagaya markaas gabadha waiterka waxay ku dheesay halkan ka carar ayadan waxay ku dheesay halkeen oo carara markaas waxay bilaabaysaa inay baarbaarto jeebkeeda waliba iyada ku soo bixinaysa furaheeda gaariga markaas ayadan furaha soo qabsanaysa waliba iyada aad u farxayso inuu maad celinaysa gabadha kadibna furaha soo cararaysa banaanka soo bixaysa waiterka ayadan alaabta soo qaadanaysa kadibna waxay aadaysaa booskeeda waliba iyada ku dheesay boos waxaan soo arkay in dhibaateynaya gabadhaas waxay ku jirtaa dhibaatooyin ay ku dhehaysaa anna waxaan siiyay furaheyga gaariga sidoo kale waxay weydiisatay caawinaad ay ku dhehaysaa markaas isagana wuxuu weydiinayaa gabadha ayadan waxay ku dhehaysaa gaariga ay saaran tahay isla markaas ninkaas soo baxay kadib waxay ku dhehaysaa ninka ku sheegay waa ninkaas si fiican u fiiri waliba waxay u siiraacinaysaa booliisku inaad tuucada isagana wuxuu ku dhahay maymay midaas ay gelin aniga markaas isagana iimaanay wuxuu ku dhahay gabadha halkan fadhiday aaway ayadan waxay ku dhehaysaa aniga ma aqaano isla markaasna booska uu sheegay waliba isaga ku dhahay waxay saaran tahay gaariga cadaanka ee banaanka yaala markaas isagana wuxuu ku dhahay waxaan soo bari doonaa casharkaasi oo inaysan dib dambe isaga cararin aniga markaas waiterka waxay ku dhehaysaa mudan maxaad ugu sheegtay gabadha markaas uu ku dhahay isagana ninkan ma taqaan qofku ayadan waxay ku dhehaysaa ma aqaan markaas isagana wuxuu ku dhahay kani waa maayirka dalkeena wiilkiisa sidoo kale wuxuu ku dhahay diyan oo sheegay gabadha meesha jirta ninkan bir meesha ma laga xiri laamaysan furnaan lahayn ayadan waxay ku dhehaysaa aniga badbaadina kadibna soo caaris isagana gacanta uu ka qoray wuxuu ku dhahay meesha adina taagnaata hooska isla markii meesha kursi dhigana waliba isku dayay inuu ilaaliyo gabadhaani markaan gabadha waxay sameysay ma taqaan way taagantahay way fikraysaa oo kaliya markaas xariifka wuxuu imaanaya gabadha waliba isagoo gaariga ku soo garaacay ayadan way naxaysaa way ka cabsanaysaa wajigiisa sidoo u yaal xitaa isagana mar walba wuxuu ka celinay banaanka inaad soo baxda ayadan waxay ku dhahaysaa banaanka ma soo baxay kaliya meesha aad tagto kuma baahna adiga markaas ku dayaysaa gaariga inay ka caasato isagana wuxuu sameeynaa gaariga ayuu ka tabinay waliba isagoo ka bixinaya fiilada gabadha markaan cabsiyo far badan ay dareemaysaa waxay ka cabsanaysaa ninka isla markaasina isagana wajigiisa wuxuu ku muujinaya xanaaqyo aad u far badan gabadhan kalena halkan ay ku fikiraysaa waliba ayadoo rabtay inay badbaadiso gabadhaas kadibna waxay soo qabsanaysaa dhaladaani hal kamid ay jibinaysaa booskiina wuxuu dhahay maxaa ku dhaca maxaad sameynaysaa adiga maxaad isjibinaysaa alaabteeda markaas waxay ku dhaysaa hadii aadan ayada caawin anna alaabtaada oo idil waan jibinaya isagana wuxuu ku dhahay dhalooyinkan waxaa ku jira wayn qaali ah ee alaabta ku baraha iga jibin meesheeda ay dhig markaas hadan wuxuu ku dhahay okay waayahay waxa rabtaan ku sameynaya laakiin waxa ku sheegi lama taqaana gabadhaas meeshaas in laga wada saacadan oo aysan joogin ayadan waxay ku dhaysaa micnaaga muxuu yahay markaas isagana wuxuu ku dhahay George ciyaalnimada okay waxa rabtaan ku sameynaya iska bax hadaad doontid iska bax ayuu ku dhahay gabadhii sidoo kale wuxuu ku sii dhahay laakiin gabadhaas waxaan ku sheegi inay wada kaliya drama waxay sameynayso idil inay kiin musalsal oo kaliya markaas ayadan waxay ku dhaysaa aniga waxaan soo idil ma aaminsan kaliya waxa rabaa gabadhaas inaa caawiyo kadibna isagana wuxuu ku dhahay okay waxa rabtaa sameyn kartaa markaas waxay ku dhaysaa dhaladan waa inay isaga siinaysan gabadhaas yar u badbaadino isagana wuxuu ku dhahay okay waad sameyn kartaa waxa doontid laakiin lacagta adiga ayaan ka rabaa ayuu ku dhahay gabadha markaan dhalada ay soo qaadanaysa waliba isagoo aanan ka qonneen ninkii weyn soo bixisa gabadhii waliba waxay soo ayaysaa banaanka dhanka kale ninka wiil wuxuu barbareenaa gabadhii ayadan way ka diidaysaa inay banaanka u soo baxdo wuxuu ku dhahay markaan da banaanka soo bixisan ku dilay ayadan waxay ku dhaysaa soo ma baxay kaliya halkan ayaan ku jiraya markaas gabadhii waiterkeed soo bixisa waxay ninka u keenaysaa dhaladan wine-ka waxay ku dhaysataa aniga aan kuugu talgalnay qaado isagana wuxuu ku dhahay waxaan u baahnay dhaaf dib ay waxay ku dhaysaa aniga ku caawinaya ikaada banaanka aniga ay soo saaray kadib ayada way maalinaysaa ayada gurgaraaysa waxay ku dhaysaa kale banaanka soo bax gabadhiina markaan ayadoosan aqoon wax ay sameeyo gaarigan ayada miskalan kadib waxay bilaabaysaa gaariga maraad u jijiso kadibna banaanka soo baxdo adigana daawada ha ilaabin muuqaalka ina like noo saarto markaas gabadhi kale waxay ku dhaysaa aniga waan ku aaminay kadibna fureeda ay gacanta ka saaraysaa markaas isagana wuxuu ku dhahay okay waa bixin hadda waxaan aadina gurigeena kadibna waxaan aarina gamekii aad adiga jecel markaas ayadan waxay ku dhaysaa aniga marwana halkaan ka tago kadibna gabadha waxay ku dhaysaa mudane gabadh maxaad ku sameynaysaa maxaad ka rabtaa inaad ku sameyso waxaan u fahmay aniga ay ku dhaysaa markaas xariifka soo boodaya wuxuu ku dhahay aniga ma taqaan horta qofkan aniga ahaa ayadan waxay ku dhaysaa may kuma aqaano markaas wuxuu ku dhahay aniga waxaan ahay qafiifo wiilka uu dhalay wuun ku celcelinaya ereygaasi sidoo kale wuxuu sheegay isaga inuusan jirin sharci qaban wuxuu doonana uu sameyn karo sababtoo ah aabiisa wuxuu yahay qafiifo markaas ayadan waxay ku dhaysaa taasina sababtan ugu wacay dadkan kale cusub isla markaasina meesha waxa soo baxaya wariyaal soo cararaya bilban ayagoo tan kaamirada iyo mikrofoonkooda bilban ayagoo ku dhahay adiga waxa wiilka qafiifo sabab gabadhan yar midaas oo sameynaysa isagana uu naxay waxaan ku dhahay aniga waxba ma sameyn markaas ayadan waxay ku dhahay adiga maxay tahay muhiimadda taabaaga oo leedahay mar baad sidan sameynayso sidan gabadhan soo boodaysa waxaan ku dhaysaa qafiifo wiilkii sidan oo kaliya miyuu yahay dabeecadiis ma sidan baa dhaqankiisa hadan wariyaalka ay ku dhahan adiga su'aalahan aniga
adiga jawaab uma haysid miya isla markiina meesha amaanaya booskii ay gabadha waxay dhaysaa ninka xataa uu ku jira waxyaabaha xun ee gabadha lagu sameynaya sababtoo ninkan uu caawiyay gabadhan way yaaban tahay isla markaasina meeshaas ay lagu caawiyay wiilka qafiif markaas gabadha kala dan waxay ku dhaysaa adiga waxa taa gabar geesiyad ah oo aad u wanaagsan sidoo kale waxay ku dhaysaa naftaada mar walba inaad ilaaliso adigana daawada ilaal muuqaalka laakiin oo sarto